Assalamualaikum calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal. Halkan waa channelka xogta dalka ku soo dhawaada qodobada aan idiin soo gudbinayo waxaa ka mid noqonaya faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxaya ciidamada dowladda Soomaaliya oo dad shacab ah ku rasaasayay gudaha magaalada caasimadda Muqdisho. Webiga Shabeelle oo mar kale ku fatahay xaafado ku yaala gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo digniin waliba hanjabaad isugu daray hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya fatahaada ka taagan gudaha gobolka Hiiraan. Maamulka Jubbaland oo ka hadashay xariga gudoomiyihii degmada Garbaharey ee gobolka Gedo. Heshiis hordhac ah oo laga gaaray colaad ka jirta gudaha gobolka Galgaduud. Taliye cusub oo loo magacaabay booliiska maamulka Galmudug. Qodobadaasi qodobo kaleeto ayaa saaxiibayaal daawan doontaan iminkana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. taariikhdana waxa ay ku beegan tahay 12 May ee sanada 2020 oo yahay saxbiyaal markan hadii aynu ku bilaabno ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu soo warmayaa in dad shacab ah ay ku rasaasayeen xaafado ka tirsan gudaha degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shaqaaqo khasaare geystay oo barqanimadii maanta ee ka dhacay waaxda Tawakkal ee degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir kadib markii ay isku dhaceen shacab iyo waliba ciidan booliis ah. dhacdadan ayaa timid kadib markii ciidamada ammaanka ee ka howlgalay Yaaqshiid ay isku dayeen inay burburiyaan guryo la isku haysto oo ku yaala dhabarka dambe ee miisaanka dhuxusha, waxaana arintaasi ka dhashay dibadbax ay dhigeen dadka shacabka ee deegaanka. Wararka ayaa sheegaya in dadweynaha isku soo baxay oo haween u badnaa ay is hortaag ku sameeyeen ciidamada booliiska degmada Yaaqshiid, balse askarta ay u adeegsadeen rasaas. Ugu yaraan 2 haween ah ayaa lagu soo warmayaa inay ku dhaawacmeen halkaasi, kuwaasi oo la cararay isbitaal ku yaala qaybo ka mid ah magaalada caasimadda Muqdisho. Waxa aan ku soo baxay buuq ee ka taagan xaafadda Durba, waxaan isiriyaa dagaalamaya. Waxaan arkay qaar ka mid ah haweenka goobta joogay ayay markaasi dhagaxaan ku tuuray ciidamada booliiska kadib rasaas ay fureen ciidamada booliiska, ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka. ilaa hadda ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha ammaanka waliba maamulka degmada Yaaqshiid ku aadan dhaawaca loo geystay haweenkaasi oo markaasi la sheegay in guryahooda si sharci darro ah loogu burburinayo. xaaladda ayaa haatan mid degan, waxaana socda dadaalo lagu xalinayo xiisadaasi, kuwaasi oo ay wadaan waxgaradka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ka tirsan. Way saaxiibayaal markan hadii aynu eegno wararka ku saabsan fatahaada webiga Shabeelle uu sameynayo, waxaa lagu soo warmayaa in webiga Shabeelle maraha gudaha magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa la sheegay in saacadii la soo dhaafay uu fatahaad ka sameeyay xaafado ka tirsan gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ka tirsan. webiga oo aad u buux dhaafiyay kadib roob aad u xooggan oo ka da'ay magaalada ayaa waxa uu biyo dhigay xaafado ka tirsan gudaha magaalada Beledweyne, iyadoo ay jiraan dadaalo ay fatahaada looga hortagayo ay wadaan guddiga gurmadka ee maamulka gobolka Hiiraan. xaafadaha oo si weyn webiga ugu fatahay ayaa lagu soo warmayaa inay ka mid yihiin xarunta Lamagalaay oo ay degan yihiin dhammaan hay'adaha maamulka iyo waliba xaafada Kooshin iyo waliba xaafado kale oo ka tirsan gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. dadka ugu badnaa hayaha magaalada ka barakacay iyaga oo aaday dhinaca deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne, iyaga oo cabsi qabo in waxyeelo markaa u geysto fatahaada uu sameeyay webiga Shabeelle. Gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa waxa uu sidoo kale digniin adag u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada gobolka Hiiraan, isagoo uga digay inay deeqo kala duwan ay u qaybiyaan dadka ka barakacay webiga Shabeelle. waxa uu sheegay in hay'adaasi ay mas'uul ka yihiin dadka ka barakacay magaalada Beledweyne, sidoo kale yihiin kuwo dana gaar ah ee ka leh fatahaada webiga, sidoo kalena ay qayb weyn ay ka yihiin in webiga markaasi uu soo fataho. hay'adda ay isku dayda inay deeq gaarsiiso dadka ka barakacay deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne, ayuu sheegay in maamulka gobolka Hiiraan ay tallaabo aysan weligooda la kulmin ay ka qaadi doonaan maamulka gobolka Hiiraan. hay-adaha ka howlgala gobolka Hiiraan wax kama bixin kartaan deegaanka Ceel Jaalle. hay-adda wax ka bixisa maamulka tallaabo ayuu ka qaadi doonaa, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti. hadalka gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan ayaa waxaa ku su'aadaya xilli maalmo ka hor uu sheegay inay jiraan dad doonaya inay dadka barakiciyaan isla markaana dana gaar ah ay ku fushaan. ويا صاحبي المركن هدي أينو إجنو وركب كوساب سن معمولك جبلان وح كهذا الشيء حريق قدوميه دق مدى البهاري قبل كجدو كترسان
shalay waxaa la sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay xireen gudoomiyihii degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gedo Imaan Cadow Kaarshe lana keenay gudaha magaalada Muqdisho kadib markii uu diiday inuu xilka ku wareejiyo gudoomiye cusub ee degmadaasi loo doortay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Gedo ahna kusimaha gudoomiyaha Ciismaan Nuur Xaaji Macalimow ayaa dhawaan xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Garbaharey ugu magacaabay maamulka Jubbaland Imaan Cadow Kaarshe balse uu diiday in xilka laga qaado madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qalqal siyaasadeed ka wada gobolka Gedo isla markaana ay burburinayso hay-adihii maamuladii ee ka jira gobolkaasi waxa uu sheegay in ciidamada ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay u soo afduubtay magaalada Muqdisho ugu soo qaaday gudoomiyihii degmada Garbaharey ugu magacaabay maamulka Jubbaland ee Imaan Cadow Kaarshe kadib markii uu diiday xilka in laga qaado sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in dhammaan maamuladii ka jiray degmooyinka gobolka Gedo gudoomiyaashoodii si awood ah xilka lagu qaaday loona dhibay xubno ay keensadeen dowladda Soomaaliya waxaana uu ku baaqay in xorriyadiisa la siiyo gudoomiyihii degmada Garbaharey Imaan Cadow Kaarshe oo iminka magaalada Muqdisho lagu soo waramayo inuu joogo sidoo kale shir jiraad oo ku qabtay gudaha magaalada Kismaayo ayuu ku sheegay in dowladda Soomaaliya ay cunaqabateyn saartay dadka shacabka ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland waxa uu sheegay in Jubbaland go'aan adag ka qaadan doonto qalqalka siyaasadeed ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka wado gobolka Gedo taasi oo ay ku burburinayso dhammaan hay-adihii sharciga ahaa halkaasi ka jiray khilaafka u dhaxeeya dowladda Soomaaliya waliba maamulka Jubbaland ayaa xoogeysay tan iyo wixii ka dambeeyay dib u doorashadii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoobe waxaana jira wadahalo toos ah oo markaasi xal loogu raadinayo khilaafka dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyay markaasi ka taagnaa waxaana horey ciidamada dowladda Soomaaliya hore loo geeyay qaybo kamid ah gobolka Gedo si markaasi ay u ilaaliyaan ammaanka gobolka Gedo balse maamulka Jubbaland waxay ku micnaysay taasi in qalqal amni ee lagu wado qaybo kamid ee maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo horey maamulka Jubbaland waxa ay sheegtay inaysan gacanta ku haynin guud ahaan gobolka Gedo balse ciidamada dowladda Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ama mas'uuliyintooda waxaana uu sheegay in maamulka Jubbaland ay qayb weyn markaasi ay ka qaadatay in dib u xoreen loogu sameeyay ama ay ka saareen qaybo kamid ah gobolka Gedo al-shabaabka ku sugnaa muddo dhowr sano qaybo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee gobolka Gedo wayahay saaxiibayaal markaan haddii aynu eegno wararka ku saabsan maamulka gobolka Galgaduud ama maamulka Galmudug waxaa lagu soo waramayaa in deegaanka lagu magacaabo Xanaanboore ee gobolka Galgaduud ka tirsan waxaa lagu qabtay kulan lagu heshiisinayo laba maleeshiyo beeleed oo maalmo ka hor markaasi ku dagaalamay deegaanka lagu magacaabo Qalanqale ee gobolka Galgaduud ka tirsan waxaana la sheegay in heshiis hordhac ah ee labada beelood ee wada dagaalamay wada gaareen kulanka ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Galmudug waxaana goobjooga ka ah dhammaan hay'adaha ammaanka Galmudug mas'uuliyiinta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo waliba magaalada Cadaado iyo waliba odayaasha dhaqanka labada beeleed ee wada dagaalamay gudoomiyaha caasimadda ee maamulka Galmudug ee magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed waliba gudoomiyaha magaalada Cadaado Cabdiraxmaan Xuseen iyo waxay u baaqeen odayaasha labada beelood inay dhaqan geliyaan heshiiska isla markaana ay wada qaataan nabadda iyo waliba xasiloonida kulanka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee labada dhinac ay iska hor fadhiistaan isaga oo gongaar u noqonaya waawaan maalmahan socotay oo lagu kala qaadayo maleeshiyaadka si loo abuuro jawi xasilooni ah oo dadka deegaanka ay ku wada noolaadaan dowladda kale saaxiibayaal haddii aynu eegno waxaa lagu soo waramayaa in taliye cusub ee loo magacaabay guud ahaan maamulka Galmudug taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa taliye cusub waxa uu magacaabay booliiska dowladda goboleedka maamulka Galmudug waragta ka soo baxday xafiiska taliye Xijaar ayaa waxaa taliyaha ciidanka booliiska ee maamulka Galmudug loogu magacaabay General Bishaar Abshir Geedi oo kamid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada booliiska Soomaaliya General Bishaar Abshir Geedi ayaa soo qabtay xilal kala duwan oo ay kamid yihiin taliyaha ciidanka booliiska qaybta gobolka Banaadir taliyaha hay'adda baarista ee CID-da iyo waliba xilal kale oo kala duwan dowladda Soomaaliya ayaa magacaawda taliyaasha ciidamada booliiska maamul goboleedyada dalka ka jira marka laga reebo maamulka Puntland iyo waliba maamulka Jubbaland oo khilaaf kala dhaxeeyo dowladda Soomaaliya waxaana taliyaashooda magacaawda madaxweynayaashooda
guud ahaan saaxiibayaal warkii aad kala socoteen channelka xogta dalka wanaginta anigoo Cabdirashiid Ibraahim Cali aad la socodsiinayay saaxiibayaal waxaan leeyahay aad baan idin salaamayaa nabadgelyo.